نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. waxaan ku dhex jirnay oo wax yar aan ka soo tilmaannay qisadii maryama binti cimraan. waxaan soo tilmaannay mar allaala markii ilaahay subxaana wa tacaala hooyadeed uu ku arsuqay walad inay ilaahay u nadartay oo ay tidhi, ilaahow waxaan u nadray waxa calooshayda ku jira inaan muxarar ka dhigay, macnaha waa kuu xoreeyey, iga aqbal bay tiri. ilaahayow samiic ducaa'a, oo ducada maqla oo ajiiba ayaad markaa tahay. intaa wixii ka dambaysay waxaa noogu soo dambaysay maryamo oo inta la dhalay hooyadeed ay ku soo duubduubtay qirq ama maro, kadibna ay soo dhex dhigtay raggii markaa, waayo horay ayay ugu nadartay in ilaahay ay u xoraysay subxaana wa tacaala. waxay ilaahay subxaana wa tacaala wax badan ka baryaysay in ilaahay walad oo owlaad uu siiyo, laakiin mar allaala markay unfa noqotay maryamo hooyadeed waxay tidhi, rabbiyow unfaan dhalay, macnaha qof gabar. ilaahayna waa og yahay wixii ay dhashay, walaysa adakaru kaalunfa wa innii samaytuhaa maryam, maryam baan u bixiyey bay tidhi, wa innii uciiduhaa bika, ayada io duriyadeedana waxaan kaa magangeliyey min ashaytaani alrajiim. intaa ka bacdi ilaahay ayaa ka aqbalay subxaana wa tacaala, fataqabbalahaa rabbuhaa biqabuulin xasanin waanbatahaa nabaatan xasanan wakafalahaa zakariya marka kafaalo qaaday. oo qur'aanku wuxuu tilmaamayaa mar allaala markii ay dhashay oo ay meesha keentay aan waan nadaray, ilaahay ayaana sharad uga galay subxaana wa tacaala inaad u xoreeyo xaaladdaa markaa ogaada. mar allaala markii ayaamo fara badan ay soo martay, bilooyin, sanooyin, maryamana marba marka ka dambaysa ay sii weynaanaysay, laakiin ayadoo yar loo keenay akhyaartii meesha fadhiyey ayaa waxaa lagu murmay qofkii markaa kafaalo qaadi lahaa. sidaa darteed waatuu rabbi yidhi fataqabbalahaa, waa uu ka aqbalay rabbigeed biqabuulin xasanin, aqbalitaan wanaagsan, oo ducadii iyo wixii ilaahay ay ka barisay ayaa ilaahay ka aqbalay. wa anbatahaa nabaatan xasanan, ilaahayna waa barbaariyey nabaad iyo barbaarin wanaag, ku guulaystay inuu kafaalo qaado oo gabadha uu koriyo dhaqaaleeyo zakariya calayhi salaam. wa kafalahaa zakariya kafaalay. kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa. marka meesha waxay tilmaamaysaa inuu zakariya uu qaaday gabadhii, saa darteed uu geliyo meel mixraab ah si markaa loogu koriyo. laakiin dood fara badan baa dhacday oo qof walba wuxuu rabay inuu asaga ricaayeeyo maryam oo asaga uu markaa koriyo. laakiin markii dagaalkay ka yimid oo qof kasta uu rabo inuu sharaftaa weyn qaato kuna guulaysta gabadha koritaankeeda, zakariya wuxuu soo istaagay, waa nebi zakariye, anigu waxaan qabaa buu yidhi habaryarteed. waayo nebi zakariya maryamo habaryarteed ayuu qabay, oo maryamo hooyadeed iyo nebi zakariya naagtii uu qabay ayaa markaa walaalo ahaa.
bacdamaa aniga aan khaaladeedii habaryarteed hoostayda ay tahay, anaa ku xaqnimo badan buu dhahay nebi zakariya inaan ricaayeeyo oon kafaalo qaado. codkii gobolka mid ah way diideen, laakiinse waxaa lagu kala baxay wax lagu magacaabo qoryatuur iyo bakhtiyaan nasiib ayaa markaa la sameeyey. waata ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala ee uu yidhi, daalika min anbaa'i alghayb, haybka wararkiida waayataa nuuxiihi ilayka. rasuulkii allow waan kuu waxyoonaynaa, wamaa kunta ladayhim, agtooda ma joogin adiga oo wakhtigii nebi moxamed kuma soo beegnayn id yulquuna aqlaamahum, wakhti ay qalimada tuurayeen, ayuhum yakfulu maryama, kii maryama kafaali lahaa. wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuuna, markay murmaayeen ragga oo ay doodaayeen oo nin kasta uu dhahay anaa korinaayana, rasuulkii ilaahayow adigu ma ag joogin, laakiin anagaa kuu waxyoonay. waa waxyi ilaahay xaggiisa kaaga yimid subxaana wa tacaala. qof walba waxaa la yidhi ha keena qorigaana magaciisa ha ku soo qoro. webi jaar ahoo soconaya aqlaamtii lagu tuuray, khashabad saqiira la saarayoo suu u sii socday. dadkii samaynayay qorituurka, qadarka raxmaan waxay keentay marka qalmaantii oo dhan in webiga ay ku mirqaan ama sabadda ay liqdo. kulli wax ka soo haray ma jirin ilaa nebi zakariya calayhi salaam qalinkiisii maahane. waa meesha ilaahay uu ka leeyahay wakafalahaa zakariya kafaalo qaaday. zakariya ayaa ku guulaystay oo ku soo baxay inuu maryamo koriyo calayhi salaam. intaa ka bacdi wuu soo kaxeeyey, wuxuuna geliyey meel mixraab ah oo ayadu markaa loogu talagalay. meeshaa mar allaala markuu geliyey, asagoo ku rabaayaynaya oo ku dhaqaalaynaya. zakariya mar allaala markuu yimaado uu u soo galo maryamo ayadoo yar oo weli xataa aan hadal gaarin, ayaa meesha wuxuu ka arkaa baa la yidhi risqi wax keenay uusan markaa la ogayn. wakafalahaa zakariya kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba, mar kastou mixraabka u soo galana wajada cindahaa risqan, risqiguu meesha ka helaa. cuntaa meesha markaa taala. zakariya aad buu ula yaaban yahay. haykalkii iyo meeshii ay markaa ku jirtay oo mixraabkii markaa ahaa, dadku isweydiinayaan. waxaa dhici karta inay dadka gobol ka mida baahi hayso, waxay cunaan aysan markaa haysanin, amase ay ka baqaanba gabadhu in risqi imtiqaana baahi iyo waxyaabo kale ay ku dhacdo. markaasaa zakariya markuu soo galay meeshii su'aal buu weydiiyey. qaala yaa maryamu annaa laki haada, kan xagguu kaaga yimid? xaggee kaaga yimideen? taasuu markaa weydiiyey. waxaa la tilmaamaa inay dhoolo caddaysay maryama. markaasay tiri sida ilaahay tilmaamayba, huwa min cindi illaahi, ilaahay agtiisuu iiga yimid. ina allaha yarsuqu man yashaa'u bigayri xisaabin, ilaahayna waa arsuqaa qof allaala qofkii uu doono, xisaab la'aan buu arsuqaa subxaanahu wa tacaala. saasay markaa tilmaantay oo taariikhdu saasay markaa tilmaamaysaa. rabbi kitaabkiisa uu ku tilmaamay mar allaala markii ay tiri ina allaha yarsuqu man yashaa'u bigayri xisaab. zakariya cabbaar buu aamusnaa. aamus weliba mutaxayir ahoo wareer ah, mutaradid ah oo ku soo noqnoqotay. tikraar ayuu ku sameeyey mashhadka iyo waxaa meesha ka dhacay. kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqan, risqi buu agteeda ka helaa markii la tilmaamay. ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa iyo inuu wax arsuqo. qofku si kastaba ha ahaatee inuu rabbi wax ku arsuqaayo, arrintaasuu markaa ogaaday zakariya. xaaladdu markay meeshaa maraysay waxaan horay u soo tilmaannay, maryamo hooyadeedna ilmo ma lahayn. markay ilaahay aad u tuugtayna gabadhaasaa ilaahay siiyey. inta calooshu maryamo ay ku jirtayna aabbaheed waa dhintay cimraan. waxaa kaloo jirtay zakariya xaaskiisa oo maryamo hooyadeed ah, ayadana awlaad ma haysanin. da'weyna markaa way ku jirtay. sidaa darteed
ayaa zakariya wuxuu fakeray oo maskaxdiisii soo gashay gabadhan yariista ah ee meesha ku jirta, allihii ayadoo meesha joogta risqi ku arsuqay, inuu awoodi karo, karina karo, inuusan quusanin bacdamaa uu ku jiro, inuu ilaahay owlaad siin karo subxaanahu wa tacaala. xaaladaasaa markaa zakariya ilaahay waafajiye subxaanahu wa tacaala. ilaahay inuu wax bixiyo cataa' hayra majaduud ah. qofkii ilaahay u tadarruca, ilaahay tala saartoo isku dhiibana inuu ilaahay arsuqaayo. waa meesha ilaahay uu ka yidhi kaaf haa yaa cayn saad dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya. waa hadal yar oo na soo kala dhex galayo maryamo bacdamaanu ka hadlaynay qisadeeda in yar oo waxaa soo dhex gashay dhextaal ah oo nebi zakariya bacdamuu arkay gabadhan oo mixraabka risqi ilaahay ugu keenay inuu asagana dhanka ilaahay u jeesto, rabbi uu tuugo si ilaahay owlaad u siiyo subxaanahu wa tacaala. dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya. midani waa naxariistii ilaahay ee addoonkiisii zakariya uu u naxariistay. isla markii wuxuu bilaabay inuu ilaahay tuugo, id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya. zakariya rabbigii ayuu baryey una dhawaaqay nidaa khafi ah oo qarsoodi ah. baryo khafiya maxaa loola jeedaa? waxaa dhici karta si qarsoodi ah ayuu ilaahay u tuugayoo ma qaylinin, ama xilli saqdhexa ah oo habeen damba ah ayaa intuu soo kacay qofna aysan u jeedin ayuu ilaahay tuugay subxaana wa tacaala. hadalladiisa maxaa ka mid ahaa? qaala rabbi inii wahana alcadmu minii washtacala alra'su shayban walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya wainii khiftu almawaaliya min waraa'i وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. دعوينك أي إلهي كبري سبحانه وتعالى. هذا الذي سوحا كمذا إنه يري ربي ولفتي ذي ويد بعدي مدحيقي وقل لي شيء الرد رادد بريها أن كابري جري إلهي كمه جرين weligii waad iga aqbali jirtay wax allaala wixii aan kaa baryi jiray. haddase baahida ilaahay loo qabo ma dhammaato, mar walbana ilaahay waa loo baahan yahay. wa innii khiftu almawaaliya min waraa'i, raggaan iga dambeeyaan diinta uga cabsanaya anna ilma melihi. wa kaanat imra'atii caaqiran, naagtayda waa caaqiro, waa ma dhasho, weligeedna ma dhalin. fahablii min ladunka waliyan, ilaahu agtaada weli iiga hibay. walad isii macnaha ilaahayow owlaad isii buu dhahay, yarithunii ani i dhaxla. waxa laga dhaxlayo waa diin. wayarihu min aali yacquub, reer yacquubna dhaxla ayuu yidhi. wajacalhu rabbi radiya. ilaahayow canugaas aad isiinaysana canug raalli laga yahay oo adi aad raalli ka tahay oo diinta ku soconaya ha noqdo. saasuu markaa ilaahay u tuugay subxaana wa tacaala. suuratu maryam haddaan meesha ku istaajino waan u soo noqon doonaa. qaybta kale ee suuratu aala cimraan ee maryamo qisadeedii aan ka wadnay ayadana aan fiirino. mar allaala markii maryamo ay tiri ilaahay wuu arsuqaa qof allaala qofkuu doona bikayri xisaabin, xisaab la'aan. hunaalika dacaa zakariya rabbah, mixraabka maba ka bixinba, asagoo mixraabkii ku jira ayuu ilaahay baryey. hunaalika dacaa zakariya, meeshaasuu zakariya ku tuugay rabbahu. qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan tayiba. wuxuuna yidhi ilaahayow agtaada duriyad tayiba iga sii. innaka samiicu ducaa, baryaha waad maqashaa oo waad ajiibtaa. isla markii malaa'ig ayaa la soo hadashay oo u naadisoo u bishaaraysay. fanaadathu almalaa'ikatu wahuwa qaa'imun yusallii fi lmixraab, asaga oo taagan oo mixraabka ku tukanaya. waxayna dhaheen anna allaaha yubashiruka biyaxya, alla yaxya wiil la dhaho yuu kugu bishaareeyey. musadiqan bikelimatin min allaahi, asagoo musadiq ah oo rumaynaya kelimad alle xaggiisa ka ahaatay. wa sayidan, asagoo sayid ah. wa xasuuran, mid la xabisay asagoo ah. xasuurku waxa lagu fasiraa baa la yidhi xumaanta iyo waxa ilaahay diiday oo dhan ayuu ilaahay ka shiray subxaana wa tacaala.
asagoo canug yar ah ayuu xukun iyo cilmi ilaahay isugu daray. wa sayidan waxasuura, qola waxay dhaheen waxasuur waxaa loola jeedaa mid la shiray oo dumarkii waxyaabaha lamidkaa laga shiray. wa nebiyan min alsaalixiin, waa nebi oo saalixiinta markaa ka mid ah, waa loo soo bishaareeyey. bishaaradii markay u timid zakariya calayhi salaam wuxuu bilaabay dood marka. qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaam, ilaahu si ani ghulaam iigu ahaana, seen u dhalaa buu yidhi. waqad balaganii alkibaru, gabowgaan gaaray, waxaan gaaray kibar. waimra'atii caaqir, naagtaydu waa caaqir, waa madhasho, see u dhalayaa? qaala kadalika allahu yafcalu maa yashaa, arrintu waa saa, ilaahayna wuxuu doonuu sameeyaa. saasaa markaa loogu jawaabay, saasuu ilaahay lagu jawaabay oo waxaa loo soo waxyooday ilaahay inuu arrintaa gooyey, xukmiyeyna. weli doodii buu sii wadaa zakariya, muxuu dhahay? qaala rabbi ijcal lii aaya, ilaah calaamad ii samey. hadduu bal iska aamuso oo iska shibdhihi lahaa, canuga ilaahay wuu siin lahaa subxaana wa tacaala. rabbi waa u hibayn lahaa canuga, ilaahay agtiisaa looga soo hibeeyey. laakiin bani aadamka yaa xaaladoodu saa tahay. wuxuu ilaah aayad ii tusi, calaamad aan ku garto inaan dhalaayo ee uu ii dhalanayo ama uu calool galay, calaamad i tusi. rabbi ijcal lii aaya, ilaahay wuxuu yidhi qaala aayatuka allaa tukallima annaasa, dadka la hadli maysid 3 ayaamin, 3 maalmood. codkoo dhan baa ka xirmaayaba. hadal hadduu rabo inuu hadlo maba hadli karo, ma ka soo baxaayo. hadallada laga xanibay oo laga xiray wuxuu ahaa waa hadalka caadigee dadku la hadlaayo. amaa hadduu rabo inuu ilaahay xuso ee uu tukado uu tasbiixsado, codku waa u furan yahay, codkiisa waa u furan yahay. sidaa darteed waxa laga shiray ee laga xabisay ee laga joojiyey waa hadalka dadka oo markaa la hadli lahaa. ilaahu aayad ii samay buu yidhi. markaasuu ilaahay dhahay aayaddaadu waxa waaye allaa tukallima annaasa 3 ayaamin, 3 maalmood, ilaa ramsan, farfiiq maahane. ramsigu waa ishaaro, sida qofka dhagoolku waxuu ishaaro u tilmaamo oo kale, inuu dadka ula hadla ma ahee si kale hadal ugama soo baxayo. wadkur rabbaka kaiiran waxay tilmaamaysaa dikriga ilaah waa u furnaa. wasabbix bilcashiyi waalibkaar waxay tilmaamaysaa tasbiixda subax iyo galab afkiis waa soo mara. laakiin hadduu damco inuu mataqaanaa dadka la hadlo, taasaa markaa laga xayiray. dhankan haddaan ka istaagno ama aan ku joojino dhinaca suuratu aali cimraan, haddana ayadii qayb ka mid ah aanu fiirino sida ilaahay uu ku tilmaamay suuratu maryam calayhi salaam. suuratu maryam suu ilaahay ugu tilmaamay subxaana wa tacaala. ilaahay mar allaala markuu xaaladdaa u tilmaamay oo arrintaasi uu tuugay ee uu dhahay ilaahayow waxaan rabaa buu yidhi owlaad inaad isiiso, rabbi ijcal lii aaya buu haddana dhahay. waayo xagga waa soo tilmaamay in aayad uu weyddiistay. meeshaana markii la yidhi zakariya waxaa laguu hibeeyey wiil yaxye oo ilaahay wuxuu dhahay yaa zakariya innaa nubashiruka bighulaamin ismuhu yaxya. zakariya waxaan kuu hibeynay siinay oo aan kuu ballanqaadaynaa inaad dhali doonto wiil lagu magacaabo yaxya. bighulaamin ismuhu yaxya waa magac ugu horeeyey oo yaxye ah oo la bixiyo. magac ka horeeyey oo yaxye ah ma jirin, asagaa markaa ugu horeeyey. waayo ilaah wuxuu dhahay lam najcal lahu min qablu samiyan, magac samila ah oo aan u samaynay ma jiro, asagaa ugu horeeyey. sidoo kale wuxuu dhahay rabbi ijcal lii, qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaam, ilaahu suu ghulaam iigu ahaanaya, see canug u dhalayaa. wa kaanat imra'atii caaqiran, naagtaydu waa caaqiro oo waa madhasho. waqad balaqtu min alkibari citiyan, anna gadow iyo citi ayaan markaa gaaraye. sidoo kale waa loo jawaabay qaala kadalika qaala rabbuka huwa calaya hayinun, arrintu waa sidaa, waa suu ilaahay kuugu bishaareeyey, canugaana waad helaysaa. rabbigaana wuxuu tahay adigoo islaantaadoo caaqiro ah, adigoo kibar iyo gabow gaaray inaan owlaad idin siino, huwa calaya hayinun waqad khalaqtuka min qabl, adi xataa waan ku abuuray horay, walam taku shayan adoon waxba ahayn.
adoon jirin baaba ilaah ku qalqay subxaana wa tacaala. markaasuu dhahay haddana rabbi ijcal lii aaya, ilaahu aayad ii samey aan ku garto canuga inuu calool galay, aan ku ogaado canuga inuu ii imaanayo ii dhalanayo. rabbi ijcal lii aaya. qaala aayatuka anlaa tukallima annaasa 3 layaalin sawiya, inaad dadka 3 habeen aadan la hadlin iyo maalmahooda adigoo caafimaad qaba. tilmaantii uu arkay inuu hadluu damcay, waa ka soo bixi waaye hadal. inuu tasbiixsaduu damcay, tasbiixdii way ka soo baxdaa. calaamadii markuu arkay habeenkii uurka loo qaaday ayuu u soo baxay qoomkiisa. fakharaja calaa qowmihi min almixraabi, ilaa mixraabka uu ku jiray, ilaahayuu baryaayey. markaa kadib buu u soo baxay qoomkiisa. fa awxaa ilayhi, waa u ishaaray inaan mala hadli karo, hadal ma ka soo baxaya afkiisaan dikri alla ahayn. wuxuu u ishaaray an sabbixuu bukratan wa cashiya, subax ii galabba tasbiixsada, subax ii galabba ilaahay nasaha, ani idinlama hadli karo. calaamad ishaarooyin ah oo farfiiq ah ayuu markaa muujiyey nebi zakariya calayhi salaam. zakariya intaa waxay qisadu u soo dhex gashay bacdamaa maryamo aan maraynay qisadeeda. waa ninkii korinaayey, waa ninkii mucjisada cajiibka badan ku arkay, waa midkii ilaahay subxaana wa tacaala sabab uga dhigay mar allaala markuu ogaaday gabadhan yaree meesha ku jirta inuu ilaahay quudiyey, asagana inuu quudin karo. sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala waxay awooddiisu keentay in bacdama xaaladdan uu arkay asagana rabbi uu bariyey inuu ilaahay asagana awlaad ku arsuqay subxaana wa tacaala. qaala rabbi ijcal lii aaya. qaala aayatuka anlaa tukallima annaasa 3 ayaamin, 3 maalmood ilaa ramsan mooyaane. wadkur rabbaka kafiiran wasabbix bilcashiyi waalibkaar. saasaa markaa la yidhi, subax iyo galabna tasbiixso oo ilaahay u tasbiixso subxaanahu wa tacaala. marka nebi zakariya qisadiisa ma wadin, laakiin dhextaal bay ahayd oo meeshii markaa noogu soo dhex gashay. sababtuna waxay tahay calaaqa waxay la leedahay qisada maryama calayhi salaam. intaa ka bacdi yaa yaxyaa khudi ilkitaaba biquwa, waxaasaa markaa imaanaya. sababtuna waxay tahay intaasoo dhan in qiso kale ay markaa tahay. amaa maryama haddaan u soo noqono, bacdamaa qisadeedii ayadoo markaa aanu ku jirnay, rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa kadib wuxuu tilmaamay markii zakariya arrintiisii iyo qisadiisii meesha ay ku dhammaatay. maryamaa lala soo hadlay haddana, oo ilaahay wuxuu kitaabka ku yidhi waid qaalat ilmalaa'ikatu, waxaad xustaa wakhti malaa'igtu ay dhaheen yaa maryamu, maryamay, ina allaha astafaaki, ilahay wuu ku doortay subxaana wa tacaala. idan maryama ilaahay wuu doortay subxaana wa tacaala. waxaa loo doortay khayr iyo wanaag, waxaa loo doortay inay dadkaasoo dhan calaamad ay u noqoto, waxaa loo doortay in ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa khayr iyo wanaag ay ka hesho. yaa maryamu ina allaha astafaaki, ilaahay wuu ku doortay. wa tahharaki, wuu ku tahiray oo waa ku nadiifiyey. wastafaaki, wuxuu kaa doortay calaa nisaa'i alcaalamiin, caalamka dumarka joogay oo dhan. caalamka dumarka joogay haddii la yidhaahdo waxaa suuragal ah in loola ilah waa la heli karaa dumar ka fadli badan maryama calayhi salaam. sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa maryam inuu ilaahay doortay. khayrka dartiisaa lala doortay, wanaag baa loo doortay, canug nebi ah inay xambaari doonto, weliba dadkaasoo dhan calaamad ay u noqon doonto, wiilka ay dhali doonto inuu aabbala-aan noqon doono. waxyaabo fara badan buu ilaahay u doortay. wa tahharaki maxaa loola jeedaa? qole waxay dhaheen xayd iyo nifaas baaba laga tahiraya oo weligeedna dhiignan kuma dhicin. sidaa darteed bay qolo kale yidhaahdeen wa tahharaki waxaa loola jeedaa wixii adnaas ah oo dembi ah oo wasaq ah oo foolxumo ah oo aan fiicnayn oo dhan yaa ilaahay ka tahiray subxaana wa tacaala. wuxuu kaa doortay dumarka caalamka oo dhan. yaa maryamu uqnutii lirabbiki, maryamay rabbigaa ateec. wasjudii warkacii maca araakiciin, sujuud oo rukuuc oo kuwa rukuucaya micigooda la rukuuc. saasuu markaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala.
meesha wax maraya inay tahay addoomaadka ilaahay ka mida subxaana wa tacaala. rabbi ayaa khalqay, saan soo tilmaannayba ilaah ma aha ayada, bacdamaa canuga mucjisadaa ay dhashay oo ilaahay aabbala'aan uu ku abuuray. horayna waan u tilmaannay, waana noo imaan doontaa dadaa u aaminsanba inay ilaahya yihiin ayada iyo wiilkeedaba. waxyaabo fara badan oo noocaas ah. xaaladaas ilaahay kitaabka wax badan oogay. gudaha markaan gaarnaan arki doonnaa in la leeyahay hadallada ay sheegayaan waxba markaa kama jiro. maryamo waad u jeeddaa, waxaa la leeyahay maryamay uqnutii lirabbiki, rabbigaa ateec oo addoon allah tahee rabbigaa qiro inuu ilaahay rabbigaa yahay ogow. wasjudii sujuud, warkaci maca araakiciina, kuwa tukanayana micigooda la tuko oo la rukuuc. xaaladaasaa markaa la faray maryama, oo waxaa la tilmaamayaa in cibaado laga rabo. waxaa la tilmaamayaa inay addoon allah u noqoto in loo baahan yahay. waxaa la tilmaamayaa makhluuq ilaahay ka mida inay ka mid tahay maryama iyo wiilkeeda, saan gadaal markaa ka arki doonna inshaa allah. marka xaaladaasoo dhan baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noogu tilmaamayaa qisadaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka uu ku tilmaamay maryama iyo wiilkeedii markaa ciise ah. intaasoo dhan saan soo sheegnayba waa min ambaa'i alghayb, oo warar qayb ahoo ilaahay uu u waxyooday nebiga. ma dhex joogin markay qalimada tuuranayeen, rasuulku ma dhex joogin kii kafaalo qaadi lahaa maryama, ayuhum midkii kafaali lahaa oo korinteeda u istaagi lahaa, ricaayadeeda u istaagi lahaa. markay ku murmaayeen oy qalimada tuuranayeen, oobiga qof kasta magaciisa qorigii lagu qoray lagu tuuraayey ma dhex joogin. laakiin waxaad ku ogaatay waa dariiq waxyi ah. nuuxiihi ilayka, annagaa kuu waxyoonay buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuuna, markay murmaayeen oo ay doodayeen oo ay lahaayeen annagaa korinayna, annagaa saa yeelayna, anaa qaadaaya, anaa abti oo ah, anaa habaryarteed hoosteeda joogtaa iyo qof kasta uu hadal sheegaayey. wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuuna, markay doodayeen adigu markaa ma joogin buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. maryama intaa wixii ka dambeeyey waxaa ku soo daahiray oo ka soo baxaya calaamadooyin muujinaya daahirnimadeeda, wanaaggeeda, sharafteeda, cisadeeda, iyo inay ahayd qof aad iyo aad u cibaado badan, qof cibaadadeedu ay aad iyo aad u badan tahayoo beydkaasi ka shaqaysa, cibaadada gudata, taqiyad baariyad ah, rabbi subxaana wa tacaala mutiicad u ah. saasay markii dambe ku sifowday maryama calayhi salaam ilaahay subxaana wa tacaala, ilaa markii dambe ay timid qadarkii iyo wixii uu ugu talagalay, imtixaan adagna la marsiiyey, waxyaabo fara badan oo dadka cibro qaadasho u ahna ay markaa ku soo bixi doonto. maryama intaa wixii ka dambeeyey way bixi doontaa, waxay aadi doontaa cibaadadeedii iyo meelo noocaas oo kale ah. waxayse la kulmi doontaa mucjiso aad iyo aad u weyn oo aynan filaynin. wax ay islahayd waad la kulmi doontaa ayay la kulmi doontaa. wax ay weligeed isdhehaynin waa arki doontaa. fara badan oo dadka gobolka mid ahna markii ay rumeeyaan oo ay aaminaan oo sida ilaahay u sheegay ay u aaminaan jannay ku tegi doonaan. in allaala in kaloo badanna ay ku cadaab mutaysan doonaan ayay markaa maryama la kulmi doontaa. waa inuu u yimaado jibriil, kadibna wiil aabbala-aan ah oo rabbi xaggiisa looga soo hibeeyey. qisada maryama saasay markaa noogu sii socon doontaa. ilaahi subxaana wa tacaala qofkuu xaqa waafajiyana waa waafaqi doonaa. intuusan xaq waafajinin oo inta diinta alla diideen oo ay garab mareen, shaytaan iyo ibliisna ay raaceen, ayay hadallo fara badan dhihi doonaan. ilaahayna aan daayiq u ahayn subxaana wa tacaala, afka inuu soo marana ay aad iyo aad u xun tahay. ilaahay subxaana wa tacaala ma uusan samaysanin saaxiibad iyo walad labada. hadallada ay ku hadlayna waa buhtaan, iftara iyo kidbi iyo been. marka maryamaanu arki doonnaa ilaahay subxaana wa tacaala sida uu noogu sii tilmaamo kitaabka qur'aanka. qisadeeda cajiib badanna
weli way noo sii socotaa, balse meesha hay noo joogto. ayadoo sii dhaqaaqday oo aan filaynin waxbaad la kulmi doontaa. kadibna wiil qurux badan oo malag ah laakiin bini aadam iska soo dhigay yaa meelaha kula kulmi doona. kadibna ilaahay farin uu u soo dhiibay ayuu guddoonsiin doonaa. laakiin meesha hay noo joogto. wabillaahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.